ciidamada difaaca Tigreega ee ka amar qaata jamhadda mayalka adag ee TPLF ayaa saanad hub iyo gaadiid isugu jirta ka furtay maleeshiyaadkii axmaarada ee isku urursaday gobolka Walqayb oo ka mid ahaa deegaanka Tigreega 30 sano ee la soo dhaafay balse 8 bilood ee u dambeysay ay ciidamada axmaaradu la wareegeen iyagoo kaashanayay militariga Itoobiya iyo kuwa Eritrea. Furashada saanadan hubka raashinka ciidanka iyo gaadiidka isugu jirta ayay ciidamada Tigreegu sheegeen inay ku qabsadeen dagaalkii shalay subax ilaa maalinnimadii ka socday gobolka Walqayb iyo goobaha hoos yimaada, waxayna hogaaminta ciidamada Tigreegu tibaaxeen inaysan keliya hub iyo gaadiid ka furanin axmaarada ee ay guud ahaan ka furteen gobolka Walqayb degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa intaba. Maxaabiis badan oo axmaaro ahna ay gacanta ku dhigeen kuna sii wajahan yihiin furashada gobolka kale ee Raaya, kadibna ay gudaha deegaanka axmaarada u sii gudbi doonaan ilaa iyo inta ay Bahardar ka qabanayaanna aysan tanaasuleynin, iyagoo tilmaamay inay qabashada Bahardar iyo Gondar uga muhiimsan tahay wax walba, xataa caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa. isla markaana qabashada caasimadaha axmaarada ee Bahardar iyo Gondar ay wax walba ka horreysiinayaan, wax walbana ku bixinayaan oo aysan dib u soo jeedsan doonin ilaa inta ay gacanta ku dhigayaan, kana waaban doonin meelna oo ay ku dhammaanayaan ilaa shakhsiga ugu dambeeya ee Tigree naftu ka baxayso. Getachew Reda ayaa dowladda dhexe ee Itoobiya ku eedeeyay inay hubeynayso beeralayda axmaarada. Getachew Reda oo ahaa afhayeenka jamhadda mayalka adag ee TPLF ayaa yidhi Abiy Ahmed wuxuu soo hubeynayaa kumanaan beeralayda axmaarada ah halka ay ciidamadiisa oo hub iyo taangiyo waaweyn watay ay hor istaagi waayeen ciidamada Tigray. beeralayda axmaarada oon taangi haysanin miyay hor istaagi karaan kuwii ay hor istaagi waayeen kuwii hubka waaweyn iyo taangiyada watay? ayuu hadalka ku soo gabagabeeyey Getachew Reda.